wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga ayaa agab ciidan oo casri ah kala wareegay howlgalka midowga Yurub ee taageera siiyo dawladda federaalka Soomaaliya. Taliyaha ciidanka lugta ee Soomaaliya General Maxamed Tahliil Biixi ayaa sheegay in qalabka uu muhiim u gaar ah u leeyahay howlgalka ciidanka xoogga waxa uu xusay in guulaha ciidanka qayb ka tahay adeegsiga qalabkani. waa u mahadcelinaynaa midowga Yurub runtii deeqda ay nasiyeen iyo alaabta ay nasiyeen muddo dheer sugaynay waxaan rajaynaynaa inta ka dhimana inay isa soo raacin doonaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo qalabkan muhiimadda uu noo leeyahay waxa weeye marka ciidanku la wareego runtii waa muhiimad aan halkaa lagu soo koobi karin ciidanka waxa uu suuragelaya in uu si buuxda u howlgalo in uu goobaha dagaalka ka howlgalo dhammaan waa qalab u sahlahaya howlgalkiisa inuu ku guulaysto haddii Ilaahay yiraahdo waxaa laydinka rabaa marka inaad u diyaar garowdaa inaad howl gashaan qalabka waxaa loo bixiyey in lagu howlgalo dalka lagu difaaco inaad u diyaar garowdaan sida ugu dhaqsiyaha badan haddii Ilaahay yiraahdo inaad waajibkiina u gudataan insha Allah. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid Samatar ayaa howlgalka midowga Yurub ugu mahadceliyay tababarada iyo qalabaynta ciidanka xoogga ay markasta la garab taagan yihiin. sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Xasan Maxamed Saciid Samatar oo si hadlaya ayaa waxa uu faray ciidanka xoogga dalka inay sidoo looga talagalay u adeegsadaan agabka ee dawladda midowga Yurub ku wareejisay dawladda. waxaa iskale midowga Yurub oo qalabkaan noogu deeqay agabkaan sidoo kale tababarada isticmaalkooda ee askarteena siiyeen marka midowga Yurub aad baa u mahadsantihiin qaramada midowga ayagana kaalintii fulintii ka lahaayeen iyo korjoogteynta ka lahaayeen ayagana waa ku mahadsan yihiin marka maanta bog baa xirnay waxaan rajaynaynaa inuu mid kale ka qeyr badan inuu loo furmi doono. howlgalka midowga Yurub ayaa taageero dhinacyo kala duwan ka siiya dawladda federaalka wuxuuna howlgalka ciidamada xoogga dalka ka taageeray tababar iyo la talin joogto ah siiyo saraakiisha iyo ciidamada dawladda gaar ahaan ciidanka militariga. agabka uu midowga Yurub ku wareejiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah isgaarsiinta radioga kaasoo muhiim u ah howlgallada ka socda dalka Soomaaliya. Absaaq Cabdi Ibraahim, Halgan 24 TV, Muqdisho.